السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkaad iga daawanaysaan waa YouTube channelkayga iyo Facebook page-kaygaba. waa markali walaalkiin Cabdalla Muxyi oo idin leh isku soo noqod wanaagsan. haddii ay markaa kugu horeysa ay tahay page-ka iyo YouTube channel-kaba nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta ku xiran channel-ka iyo page-kaba insha Allah. haddii aad hore noola joogtay ama aad ka mid ahayd daawadayaasheeni hore iyo asxaabteydii horeba haddii aad ka mid tahayna waxaan idin leeyahay isku soo noqod wanaagsan. videogan maanta waxaan ugu talagalay in maaragtay aan uga hadlo shuruudaha laga rabo qofka lottery xareenayo. dabcan lottery maanta ayuu furmay October 5teedii sidaan videoga hore idinku sheegay inuu furmaayo October 5teedii. finally waa la gaaray waqtigii lottery la xareen lahaa oo maaragtay website-kii dib ayuu u furmay. insha Allah waxaan rajeynayaa inaad maaragtay mar kale nasiibkiina tijaabisiin haddii aad hore u xareysan jirtay haddii ay markaa kugu horeysa ay tahayna aad rabtidna inaad nasiibkaaga tijaabisid waxaan ku leeyahay nasiib wacan insha Allah. shuruudaha oo maaragtay laga rabo qofka xareysanayo lottery-ga waa 14 shuruudood. halkaan aan ku wada sheegi doonaa anoo mid mid u dul istaagi doono 14 shuruudood 13 ka mid ah waa waajib oo qasab inaad ka soo baxdid. halka shuruudda 14aadna waa mid maaragtay optional ah ama waad maaragtay buuxin kartaa ama waad ka tagi kartaa haddii aad rabtid. insha Allah videoga ayaad ku ogaan doontaan shuruuddaasina waxay tahay oo aad iska dayn kartid ama aad buuxin kartidna insha Allah. shuruudda ugu horeysa ee laga rabo qofka buuxinaya lottery-ga sanadkan waa magaca qofka oo saddexan. magaca oo saddexan markaan ku leeyahane ma ahan magacaaga koowaad, magaca aabaha iyo magaca awowga inaa hal mar wada gelisid. meeshaanayta full name waxay dhahaan magacaaga koowaad iyo magaca awowga, yacni magaca aabaha way ka boodaan, balse adiga xur ayaa u tahay in maaragtay middle name-kaaga aad gelisid. magaca aabaha optional waaye, meesha maaragtay haddii aad rabtid waxaad dhihi kartaa ma haysto magac oo middle name ah. marka shuruudda koowaad waa full name-kaaga, hebel 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 ama hebel hebel. adi laba magaca ugu muhiim ah, magacaaga koowaad iyo magaca awowgaaga ugu muhiimsan. marka insha Allah waxaad isku daydaana maadaama sanadkan baasaboorka laga daayay shahaadadaada high schoolka ama shahaadadaada bachelorka ah ama maaragtay shahaadadaada masterka ama shahaadadaada PhD-ga ah magaca siduu ugu qoran yahay inaad ugu buuxisid. magacaaga shahaadada kugu qoran iyo magacaaga aad ku buuxinaysid waa inay islahaadaan. hadalkayga si fiican u maqli insha Allah. magacyada sanadka waxoo dhan inay iswada lahaadaan insha Allah. waxaan rajeynayaa inaad maaragtay shuruudaas koowaad aad si fiican u fahanteen. genderkana shuruudda labaad waa gender. gender waxaa laga wadaa lab iyo dhadig, nin ama naag, rag ama dumar, wiil ama gabar waxaa tahay inaad maaragtay sheegtid. shuruudda labaad waaye. marka insha Allah shuruudda saddexaad u gudbeynaa oo ah taariikhda aad dhalatay, date of birth ee dhahaan waa taariikhda aad dhalatay. taariikhda aad dhalatay markaad xareynaysid lottery waa inaad ka weynaataa 18 inaad tahay ama inaad ka weynaatid, yacni 18 jir wixii ka yar waalidkooda la xareysanayaan. balse haddii aad 18 ka weyn tahay oo aad maaragtay ama 18 jir haddii aad tahay kale waa xareysan kartaa oo maaragtay shuruudaha oo waa maaragtay eligible u tahay waad buuxin kartaa. shuruudda afaraad haddii aan u guda galo magaalada aad ku dhalatay. magaalada aad ku dhalatay waa muhiim. hadhow markii uu kuu soo baxo magaalada hadda ku dhalatay aad ku buuxisay iyo baasaboorka magaalada aad ku dhalatay waa inay islahaadaan, yacni same inay ahaadaan. kolley shahaadada waxa uu u maleynayaa in lagu qoro magaalada aad ku dhalatay qasab waaye. shahaadooyinkeeni inkastoo hadda maaragtay waagii anaga high schoolka aan dhiganaynay iyo hadda shaqo aysan isku lahayn waagaasayto imtixaanka iskuulada un baa naga qaadi jireen. hadda laakiin imtixaanka maadaama dowladda ay qaadayso kolley way ku qoraana u maleynayaa magaalada aad ku dhalatay. waa muhiim magaalada aad ku dhalatay inay iswada lahaato shahaadada tan kugu qoran, tan hadda aad ku buuxinaysid iyo baasaboorka midda kugu qoran. haddii aad baasaboor hadda leedahay iyo haddii aad hadhow sameysanaysidba waa inay iswada lahaadaan. tusaale ahaan adigoo muqdisho inaad ku dhasho aad ku buuxsatay lottery-ga hadhow baasaboorkaaga kama dhigan kartid inaad ku dhalatay Kismaayo, Hargeysa, muxuu ahaa Jabuuti, whatever. adiga waa inay iswada lahaadaan magaaladaad ku dhalatay, shahaadada inay kugu qornaato iyo muxuu ahaa baasaboorka kugu qornaato ama intan aad ku buuxinay saddexdooda waa inay islahaadaan. waxaan rajeynayaa inaad fahanteen qodobkaas afaraad. qodobka shanaad wadanka aad ku dhalatay, yani wadanka ku dhalatay iyo magaalada ku dhalatay waa isku mid laakiin way kala qaadeen. wadanka yani muqdisho hadda ku dhalatay Soomaaliya uma wadanka
haddii aad maaragtay hargeysa ku dhalatay kolley maaragtay meesha kuma jirto in maaragtay muxuu ahaa wadanka Somaliland aad ka dhigtid, balse Soomaaliya inay noqoto un. haddii aad ku dhalatay Jabuuti, haddii aad ku dhalatay waa inaad Jabuuti ka dhigtaa. magaalada ku dhalatay iyo dalka ku dhalatay laba qodob ay ka kala dhigeen, balse waa in maaragtay isleeyihiin wax oo maaragtay kala duwan maahan. inaad maaragtay qodobkaas shanaad isna waxaan rajeynayaa inaad fahanteen. qodobka lixaad, counter of eligibility. counter of eligibility kaaga haddii aad Soomaaliya ku dhalatay ama aad maaragtay muxuu ahaa kasoo jeedid Soomaaliya, waa isla Soomaaliya oon maaragtay wax bedelaysid ma lahan. qodobka toddobaad waa qodobka ugu muhiimsan aan isleeyahay lotteriga haddii maada aa xareysanaysid, shuruudaas inaad si fiican isaga adkaysid, waana sawirka. sanadkii hore waa sharxay, sanadkanna waa sharxayaa, YouTube waa ku sharxay, TikTok waa ku sharxay, haddana waa ku celinayaa. sawirka size-kiisa inaad iska saxdid. sawir aad sanadka hore ku xareysatay sanadkan kuma xareyn kartid. sawirku waa ugu yaraan sawir lixdii bilood ugu dambeysa aad gashay inuu ahaado kow. marka labaad, size-kiisa inuu yahay muxuu ahaa cabirkiisa dhirir iyo balacba inay ahaadaan 600 iyo 600. dhirirka 600, balacana 600. size-kiisana waa inuu maaragtay ka yar yahay ama la eg yahay 240 KB, 240 kilobytes. yani haddii uu maaragtay ka badan yahay kaama yeelaayo. sawirka inuu ku saxan yahay waxaa ku ogaan kartaa haddii mar uu kaa qaato oo meesha green uu ku noqoto, sawirkaaga uu saxan yahay, balse haddii uu sawirkaaga wax ka qaldan yihiin uu kugu soo celinaya. sawirka maaragtay file formatkana waa inuu ahaado JPEG. yani dadka sawirada qaada way yaqaanaan. kolley sawirkaaga teleefankaaga hadda isaga qaada, haddii aad editingka taqaanid oo size-ka aad saxan kartid, oo maaragtay cabirka aad saxan kartid, oo maaragtay file formatka aad saxan kartid, why not? background-kan waa inuu ahaado cadaan, dhagahaaga waa in loo jeedo wiil haddaa tahay waaye, dhagahaaga waa in loo jeedo maaragtay sawirka hoos inuusan yeelanin, shadow inuusan yeelin. gabdhahana qamaarkooda iyagoo wataan qoortooda u daboolan tahay, madaxooda u daboolan tahay, ayagoo asturan way gali karaan. tusaale ahaan sawirka waxaan soo geliyay TikTok-aygu ku jiraa, gabdhaha anoo dhahaya haddaad rabtid haddii aadan rabin inaad isqaawisid, sawir adoo asturana gali karta oo timahaaga loo jeedin, qoortaada loo jeedin, dhagahaagana loo jeedin. waxaan rajeynayaa inaad fahanteen. sawirka sanadkii hore aad ku xareysan biliisa ku xareynin. sawir cusub ha noqdo oo aad gashay 6 bilood ee ugu dambeysay. qodobka 8aad, mailing address. mailing address dadka badanaa way ku dhiban yihiin. mailing addresska waa meesha aad ku nooshahay addresska hadda ku ah. tusaale ahaan aniga ahaan markaan xareysanayay Qaahiraan joogay, Qaahiraan ku noolaa, balse waxaan ku dhashay Muqdisho iyo Soomaaliya. marka way kala duwanaan karaan meesha ku dhalatay iyo meeshaad ku nooshahay oo addresska ku ah, way kala duwanaan karaan. hadday isku mid yihiin alxamdulillah, hadday kala duwan yihiin waa inaad maaragtay kala duwdaa oo aad ka dhigtaa hadba meesha aad ku nooshahay. mailing addresska tusaale ahaan maaragtay Soomaaliya kolley waa naqaanaa muxuu ahaa address sax oo sida inta aan ku heesana camal ma ahan, sida Europe iyo Mareykan iyo Australia iyo maaragtay wadamadan Asia camal ma ahan oo wadamada horumaray ma ahan. marka waxaa sameynaysaa wadada xaafadiin ugu caansan aad maaragtay ka dhigaysaa addresskaaga. magaaladana kolley magaaladaad ku nooshahay Muqdisho ka dhigay, haddii aad Hargeysa ku nooshahay Hargeysaad ka dhigaysaa. marka wadankaa ku nooshahay muxuu ahaa iyo meeshaad ku nooshahay iyo meeshaad ku dhalatay way kala duwanaan karaan. qodobka 9aad kolley waa tii haddaad camal oo kale, magaalada ku dhalatay iyo wadankaad ku dhalatay. kan haddana qodobka 9aad waxaa waaye wadanka aad ku nooshahay. marka wadankaa ku nooshahay iyo wadankaad u dhalatay way kala duwanaan karaan. adigoo maaragtay jooga muxuu ahaa Kenya jooga, aad waxaad ku dhalan kartaa Muqdisho, Hargeysa, Jabuuti, Kismaayo, Jigjiga, meesha rabtid ku dhalan kartaa. waa inay maaragtay aad sheegtid wadanka aad ku nooshahay. way kala qaadqaadayaan aroonna sababtay u kala qaadqaadayaan mailing addresska iyo wadanka ku nooshahay oo isku mid. sida data aan u dhahayo kaleetay wadanka magaalada ku dhalatay iyo wadankaad ku dhalatay sidoo kale maaragtay muhiim aan Muqdisho ku dhashay hadaa dhaho automatic ina Soomaaliya ee taa waa la ogyahay. qodobka 10aad waa qodobka hadaati idin sheegayay ee ah inaad iska dhaafi kartid ama inaad ku buuxin kartid. waa phone number. phone number haddii aad waa gelin kartaa, haddii aad ma gelin karto waa optional.
marka adaa iska leh maaragta xor baa u tahay inaad gelisid iyo inaad iska daysid. phone numberkaa gelinaysidna ha noqdo phone number adiga hadda aa haysatid oo kuu shaqeynayo, adigoo Kenya ku nool number oo Soomaaliya ha isku gelinin. marka insha Allah waxaan rajeynaya inaad fahanteen. email addresska oo aan dhihi karo qodobka labaad ee ugu muhiimsan waaye marka laga soo tago sawirka. email address shaqeynaya laga rabaa. email addresskaasi tahay dhow waa meeshaad maaragtay emailka kaga diri karta dii lagu doorto waxyaabo oo maaragtay failka oo aad maxaa la dhahaa formka DS260 oo aad maxaa muxuu ahaa aad diraysid aad dhihi kartid hal ii fur dib hal ii fur adi waa emailkaad dadkaas kala xiriiraysid oo aad kula communicate gareynaysid. marka email shaqeynayo oo passwordkiisana saxan yahay ha ahaado emailka. tusaale ahaan confirmation number lagu siinaa. confirmation numberka haddii uu kaa dhumo waa waxaad ku heli lahayd hadhow. waxay ku weydiinayaan email address ay kugu soo diraan confirmation numberka. please email address sax ah oo shaqeynayo ka dhiga. qodobka 12aad highest educational level, yani waxbarashada heerka aad ka gaartay, waxbarashada heerka ugu sareysa aad ka gaartay. qodobkaneeto dhowr maraan ka hadlay, haddana waa ku celinayaa. ugu yaraan waa inaa haysatid high school diploma, waa inaa yani dugsi sare waxa ugu yar aa haystid uu yahay. meesha waxay kusoo qoraan primary muxuu ahaa high school with no degree and high school with degree. primary waa isaga soo dhex darayaan, laakiin hoos waxaa kusii qoran qodobada markay dhamaadaan ilaa PhD ay gaarsiisan tahay minimum qofku waa inuu haysto shahaado dugsi sare ah. waxaa rajeynayaa inaad fahanteen. sidoo kale haddii aadan high school aadan haysanin oo aad leedahay xirfad 2 sano ah, yani 2 sano aad shaqeynaysay, sidoo kale isagana waa xareysan kartaa sida meesha ku qoran. marka maalinkaa xareynaa insha Allah dul istaagi doonaa, si fiican u sharxi doonaa hadduu Ilaah yiraahdo. qodobka 13aad waa current material status, yani single ma tahay, married ma tahay, maaragtay ma kala tagteen xaajigaaga ama xaajiyadaada, maaragtay ama xaajigaaga ma kaa dhinta ama xaajiyadaada ma kaa dhimatay, wax walba inaad sheegtid. yani inaad material statuskaaga aad qeexdid. single data single inaad ka dhigatid, married data inaad married ka dhigatid. tusaale ahaan adoo hadda single ah aad xareysatay, waa lagu qaatay, inta ma aragtay u dhaxaysay muxuu ahaa barnaamijka intuu kuu xareysnaa aad guursatay, hadhow waad ku darsan kartaa qofkaaga lamaanahaaga ama lamaantaada waa ku darsan kartaa, balse waxaa lagaa rabaa warqad cadeynaysa waqtiga is guursateen, yani marriage certificate ay kaa rabaan. haddii maaragtay adi iyo xaajigaaga hadda isla xareystaan oo ubad hadda caloosha idinkugu jira, sidoo kale isagana intuu maaragtay barnaamijka maqan yahay, haddii aad ubadkiin dhashiin oo idin soo baxo ubadkiin waa ku darsanaysaan. waxaa laidinka rabaa birth certificate-ka cuniga. waxaa rajeynayaa inaad qodobkaasna fahanteen. qodobka ugu dambeeya waa number of children, yani halaha caruur aa haysatid. haddii aad single aad tahay 0 waa gelinay o. haddii maaragtay ciyaal aad maaragtay xaaskaaga ama xaajigaagana aad isku xareysanaysaan, ilmo idin joogaan, numberka ilmihiina ay yihiin inaad maaragtay gelisaan. haddii maaragtay muxuu ahaa aad kala tagteen xaajigaa oo ilmaha adi aa haystid, ama adii xaajiyadaada aa kala tageen ilmaha adiga aa haystid, numberka ilmaha aad haystid inaad gelisid. marka waxaa rajeynayaa inaad qodobada aad fahanteen oo aad maaragtay ka bogateen qodobada ama shuruudaha qofka laga rabo lottery inuu xareeyo uu kasoo baxo. waxaa ugu muhiimsan sawirka inaad iska saxdid, 2 email address shaqeynayo, 3 in maaragtay muxuu ahaa aad ka weyntahay 18, 4 shahaado ugu yaraan high school inaad haysatid ama xirfad shaqo 2 sano iyo ka badan aad haysatid. insha Allah video ku xiga waxaa idin tusi doonaa qaabka loo xareynayo. barnaamijkan October 5 furmay, maanta furmay ilaa wuxuu furnaan doonaa November 8. wax rasha isgelinin. website-ka duu culays aad aragtid ha isku kurbeenin. dadkiyaa maaragtay ku wada shamuumay oo maaragtay wada jam ka wada dhigay. waqtigaaga yara qaado, videoyada fiirso, fahan. telephone haddaa haystid waa ka xareyn kartaa, laptop haddaa haystid waa ka xareyn kartaa, iPad haddaa haystid waa ka xareyn kartaa. muhiimadda waa inaad internet haysataa, internet shaqeynayo. website-kana wuu isxirayaa 30 daqiiqo ka badan haddii uu furan yahay. marka insha Allah waxaa inoo balan videoga xiga.
haddii aad barnaamijka maxaa la youtube-ka ama channelka facebook page-ka aad ku cusub tahana nagu soo biir, like-ta noo taaba oo dhiirigelinahay noo noqoto. wixii su'aal aad qabtidna comment-iga ku soo qor, asxaabtaadan la sheer garee. intaasaa idinkaga tagayaa. wixii aa khalday waa cinda shaydaan, ma aragtay bini aadana ah. wixii qalad aad meesha ku aragtaana comment-iga soo qora si aan u saxo. ilaa bini aadan ah waa qaldami karaa. waxaan idin rajeynayaa guul dhammaantiina. inta sanad ka hor xareysto u soo baxana idinkan interviewga sugaysa, waxaan idin leeyahay ilaahay ha idin fududeeyo. inta sanadkan xareysanaysana waxaan idin leeyahay good luck oo nasiib wacan. aad baan idin salaamayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.